الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. shuruudda ay ku waajibaan xajka iyo cumrada waxaa asaas u ah Allah subxaanahu wa tacaala qowlkiisa walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu xaq waajiba ugu leeyahay dadka inay kacbada soo xajiyaan ciddii awooda. qofkii awooda inuu soo xajiyo ayaa xajkii uu ku waajibaya. cumradina sidaasoo kale weeyaan. istitaacada ama wadada qofku uu awoodaya uu xajkii ku tegi karo, ibnu cabaas iyo keyrkii waxay ku fasireen azaadu waraaxila. bal nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa laga wariyey man istataaca ilayhi sabiilan ma sabiilu. qofkii wadda u awoodo uu ku tago waddadu maxay tahay? markaabuu nabigu sal allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi azaadu waraaxila, waa zaadka iyo gaadiidka. yani wixii uu jidmar ka dhigan lahaa, lacagtii uu isticmaali lahaa iyo gaadiidkii uu ku tegi lahaa maka. intaa qofku hadduu helo inuu soo xajiyo waajib weye. haddadan waqtiga aan joogno, waagii hore qofku shakhsi ahaantiisa ayuu isu dabari jiray, isagaa raadsan jiray gaadiidka uu ku soo xajin lahaa ama uu ku soo cumraysan lahaa. hadhow biilkiisa isaga ayaa dabaran jiray inta waddada lasii socdo iyo intii uu maka joogo iyo soo laabadka wixii oo dhan. laakiin hadda si dhammaystiran ayaa qofku lacagtii uu bixinayaa, waa la qaadayaa, magaaladiisa laga qaadayaa ilaa hadhow magaaladiisa lagu soo celiyo qarashkeedii, haddii ay tahay gaadiidkii hadda uu raacayay iyo intuu dhulka barakaysan joogo gaadiidkii uu raaci lahaa, meelaha kala duwan uu kala gooshi lahaa, meeshii uu degi lahaa, cunadii uu cuni lahaa, waxaasoo dhan hal mar baa qofka laga qaadaa. qiyaastaas marka qofka lacagta loo sheego iyo wixii kaloo isle waad u baahanaysaa, awooddeeda marka uu leeyahay inuu soo xajiyo ayaa waajib ku ah. intaas qofku hadduu helo inuu soo xajiyo ayaa waajib ku ah. xajka iyo cumradu waxay ku waajibaan waa qofka muslimka ah ee qaangaarka ah ee caqliga leh, oo ilmihii yaraa xajka iyo cumradu waajib kuma aha. qofka waalan xajka iyo cumradu waajib kuma aha, sida axkaamta kaleba oo labada midna mukallaf ma aha, qalinkii takliifkana waa laga qaaday. marka qofkii qaangaar ah ee caqli leh ee awooddaas maaleed haya, xajku waajib buu ku yahay. haddii nafsad ahaantiisa inuu tago ay u suurtogelayso oo awood jireed uu leeyahay oo acmaasha isagu uu samayn karo, isagu inuu baxo ayaa waajib ku ah. haddii kalena qof ka xajisa ama ka cumraysata inuu raadiyo ayaa waajib ku ah. qofka loo shardinayo gaadiid inuu helo, raaxilo inuu helo, waa qofka maka ka fog oo masaafatul qasri inta la yidhaahdee meesha qofku markuu u safrayo salaada uu gaabinayo ama meel kasii fog qofka maka u jira ayaa gaadiidka loo shardinaya. ama dadka maka degan ama meel ku dhow degan oo inay soo lugayaan ay u sahlan tahay, iyaga shardiba uma ahan in gaadiid ay helaan. shuruudda zaadka iyo raaxilada waxaa ka mid ah inay dheeri ka yihiin qofka deynta lagu leeyahay. yani qofkan maala hanti buu helay, deynna waa lagu leeyahay. deynta markuu iska bixiyo wixii soo hara waa inay noqdaan wuxuu ku soo xajin karo. deyntaasi mid Allah uu ku leeyahay, mid uu nadray, mid kafaar ahaan loogu yeeshay, waxaasoo dhan baa soo gelaya. deyn hadda isaga dimadiisa lagu leeyahay oo maarata ama laga suganayo ha noqoto ama mid hadda loogu dhegan yahay ha noqoto. qofka sidoo kale waxaa shardi ah hantida uu helay inay dheeri ka tahay dadkii waajibka ay ku ahayd inuu biilo hadday jireen biilkoodii. dadka qofka ay waajibka ku tahay inuu biilo waa ilmaha isagu uu dhalay iyo waalidkii isaga dhalay haddaysan hanti lahayn iyo ninka ragga xaasaskiisa. intaas biilkoodii waa inuu meel dhigi karo maalinta uu safro laga bilaabo ilaa maalinta uu soo laabanayo, inta u dhaxaysa. hadday bil tahay, hadday bili barta, hadday 2 bil tahay, wixii ay biilan lahaayeen waa inuu meel u dhigo. intaa wax ka soo hara marka uu hayo ayaa xajkii ku waajibaya. qofku marka inuu iska baxo oo dadkii waajibka uu ka saarna uu dayaco uma bannaana. maxaa nabigu sal allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi kafaa bilmar'i ithman an yudayica man yaquut. qofka waxaa dembi ugu filan ciddii quudkeedu uu saarnaa ee uu biilay inuu dayaco, taas baa dembi ugu filan. waxaa kaloo shardi ah dadka cunadooda oo keliya maahan, hooyaadkoodii meesha ay degayeen wax ka dheeriya waa inuu haysto. oo hantida uu haystaa hadday tahay guriga reerku uu degayo ilmuhu ay ku nool yihiin, guriga haddii la iibiyana ay suurto galayso inuu ku soo xajiyo,
laakiin ilmihii meel cidla ay ku soo harayaan sida xajku ugu waajibi maayo ilmaha meesha ay degayin uu u daynaya. laakiin culammadu waxay yidhaahdeen guriga la degan yahay hadduu yahay guri qaali ah maalan, oo haddii gurigaas marka la iibiyo guri munaasiba in lacagtii qayb lagu soo gado ilmihii ay degaan qaybna uu ku soo xajiyo ay dhici karto, xajkii waajib buu ku noqonaya. haweenta iyada inta badan cid kale inay biisho laguma yeesho, ilmihii iyadu ma biirayso, xataa nafsadeeda zawjkii waa kafaalo qaaday. iyada marka waalid ay biilaysaa haddii uusan jirin, ama ilmo cid kale uga sokayso ay biilaysaa haddii aysan jirin, hantida ay haysato inay ka soo xajiso ayaa waajib ku ah. haddii guri ay leedahay maalan haweentu, guriga inay iibiso oo ay ku soo xajisaa waajib bay ku noqonaysaa. qofka haddii maalan uu leeyahay hanti uu ku ganacsado, ra'sumaal uu leeyahay, maharad ganacsi ama dukaan maalan uu furan yahay, oo haddii alaabtan hadda la xaraasho waxa uu hayo oo dhan ay suurto gelayso ilmihii biilkoodii hadda inuu meel ka dhigo ilaa uu ka soo laabanayo, uuna ku soo xajiyo, xajkii waajib buu ku yahay. sidoo kale haddii uu beer leeyahay oo beertii marka la iibiyo ilaa uu ka soo laabanayo ilmaha biilkoodii meel uu ka saari karo, uuna ku soo xajin karo, xajkii waajib buu ku yahay. haddii ari uu leeyahay, haddii geel uu leeyahay, waa qadarkaasoo kale ah marka la iibiyo qiimahooda marka la fiiriyo, ilmaha iyo dadkii inuu biilay waajib ku ahayd, biilkooda meel uu ka saari karo ilaa uu ka soo laabanayo, inta kalena uu ku xajin karo, inuu ku xajiyaa waajib bay ku noqonaysaa. oo sax maahan inuu yidhaahdo intaan waa ra'sumaalkii bay noqonaysaa, wixii aan ku shaqaysan lahayo mustaqbalkan wax ka raadin lahaa weeyaan, haddadan waajibka saaran inuu guto ayaa waajib ku ah. kabacdi markuu soo laabtana irsaaqada ilaahay waasac weeye, haddadan inta uu haystaba ilaahay baa siiyey, hadhowna allah subxaanahu wa tacaala ayaa siin kara.